الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحمد لله إلهي بانكم هدينا صلاة دائما سوقي بلي جماعة runtii waan soo ziyaaranay uuno waxaan idhi bal sheekha iyo dadka musalliinta xaafadan degan intaana duufin soo salaama haddana ma aragtaan inaan sii dardaaranno oo isbaraarujinno oo isku nasteexayno oo diinteena macaan bayna faraysa salaada duhur ee jamaca la soo tukanana dee allah inaga aqbalo camalka inaad la timaado waa dadaal inaad ku dadaasho camalkaad la timid in laga aqbalana iyaduna waa dadaal labaad oo kale weeyaan oo dadkii wanaagsanaaye naga horeeyey inay camalka saalixa la yimaadaan waxay kaga dadaal badnaayeen camalka ay la yimaadeen haddana in laga aqbalo ilaa camalkii aad ku tacabtay oo aanan laga aqbalin iyada laftigeedu waa khasaaro weyn weeyaan cabdullaahi bin cumar bin khadaab radia allaahu canhuma ayaa zamankii dambe dadka muslimiintu aad ay u soo bateen dad badan oo cumar bin khadaab aanan soo gaadhin ay wiilkiisii ibnu cumar ay soo gaadheen ayaa ammaantii bay markaa kala dul dhaceen ibnu cumar oo yidhahdeen adigu nin caynkaasaa tahay aabbahaana nin caynkaasuu ahaa anta kada wa abuuka kaana kada wa kada markaasuu ku yidhi waxaa ammaanaad aniga igala dul dhacaysaan waxaan kaga farxad badnaan lahaa buu yidhi 2 rakacadood oon tukaday oo layga aqbalay oon ogaadoo la ii sheego ayaa waxaasoo dhanba aan kaga farxad lahaa buu yidhi kaga farxad badan lahaa camalka inaad la timaadaa waa dadaal oo ilaahay baa qofka waafajiya laakiin camalka in laga aqbalaana dadaal kale u baahan tahay ibraahim alkhaliil calayhi salaam iyo ismaaciil markay beytka ilaahay ay dhisayeen waxay ilaahay weydiisanayeen qabuuliyad waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu rabbana taqabbal mina inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin waxay ku dadaalayeen camalka in laga aqbalo asbaabta camalka lagu aqbalana waxaa ka mid ah waa alla ka cabsiga inuu qofku noqdo qof ilaahay ka baqaya oo taqwo leh oo ikhlaas leh ikhlaaskuna waxa weeyaan waa seeska dhan ee diinteena islaamku ay ku dhisan tahay oo camalka saalixa la timiday haddaad sadaqad dhiibayso haddaad soomayso haddaad qur-aan akhrinayso haddaad diin baranayso haddaad diidda dadka aad barayso haddaad imaam tahay haddaad ma'muum tahay haddaad mufasir tahay haddaad daaci tahay camalkaaga in laga aqbalaa waxa u shardiya bay culimmadu yidhaahdaan waa ikhlaas iyo cilmiga ikhlaasku baa la yidhi waa qabuulu lcamal camalka in laga aqbala ikhlaaska u shardiya cilmiguna waa sixatu lcamal camalkaagu inuu sax noqdaa waxa u shardiya inaad camalkanaad qabanayso aqoon aad u yeelataa oo salaadiibaa labadaa u baahan oo dikrigiibaa labadaa u baahan oo ducadiibaa labadaa u baahan oo soonkiibaa labadaa u baahan oo xajkiibaa labadaa u baahan markaad camalka saalixa aad qabanayso ilaahay dartii waa inaad u niyootaa waxaan ilaahay inaad ajar kaga helayso sixada camalkuna wuxuu camalku sax ku noqonayaa waa markaad culummada aad ku xidhan tahayd weydiinaysid kayfiyadda camalka hal camal oo saalixo ilaahay kaa aqbalay ayaa adduunka wax u dhigmaba la helaynba waa kii nebigeenu lahaa sal lla ly slam inama alacmaalu binniyaat camal walba waa niyadda waxuu ka unkamayo xadiidkaasi culummada musanifiinta kitaab kastay qoraan xadiiskaasay uga dhigaan bilow bidaayo uga dhigaan haddaanan camalkan ikhlaas aanan lagu qabanin ma soconayo xataa qusluljanaaba janaabada markaad ka meedhanaysid bay culimmadu ku leeyihiin arkaanteedu waa 2 anniya wa tacmiimu lbadani bilmaa inaad niyootaa inaad qusluljanaaba aad ka meedhanaysid haddaanan niyoonin kaa meydhma maysir bay ku leeyihiin iyo jidhkaaga inaad biyaha ku camimtaa oo meel walba aad gaadhsiisaa
marka ikhlaas Allah ina siiyo mukhlisiin Allah inaga dhigo الناس موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملون والعاملون مغرورون إلا المخلصون والمخلصون على وجل حتى يعلموا ما يختم بهم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه erayadii siibay kamid ahayd dadka oo dhan way dhinsan yihiin ilaa culimada un baa ka nool buu yiri dadka cilmiga sharciga yaqaana dadka un baa dad oo nool buu yiri waxa kale oo dhan waa dad dhintay lamid yihiin buu yiri culimaduna iyaga laftigooga cilmiga ayaa sakhraamiyay buu yiri ilaa kuwa cilmiga ay barteen ku amal falaya mooyane kuwa cilmiga ku amal fala ee diinta ku dhaqmana way dagan yihiin buu iyaga laftigooga way dagan yihiin oo amalka ayaa dagaya illa al-mukhlisun kuwa mukhlisiinta amalka ilaahay u barax tirta mooyane wal mukhlisuna ala wajlin dadka mukhlisiintuna cabsiba ilaahay ku caabudaan ila ay ogaanayaan khaatimadoodu waxay ku dambeynayso inta hore oo dhan waxay ku jiraan cabsiba ku jiraan in caalim ahaayo saajidkiisa markaan ku tukado salaad kasta marka uu ka baxo ayuu ku ducaysan jiray Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima wa shahada 'inda al-maut wa na'udhu bika min su'i al-khatima markaasan nin sheekhan weydiyo nin sheekha ducadaas way ku badan tahay wuxuu 65 sano ayuu duruusta masaajida ka mariya maalina ducada kama taga baa la yiri isagoo kitaabkii Bukhariga habeenkii dhameeyay oo ardaydiisina kala ballamay Tirmidiga inuu u bilaabi doono usbuuca dambe sunnadiina gurigiisa ku soo sunnaystay fajrka fadaja ala shaqihi al-ayman markaasuu sidii sunnadu ahayd buu dhinaca midigta u yar jibsaday way ka raacday nafti 65 sanana wuxuu ku ducaysanayay ilaahu khaatimada ay wanaaji ilaahay khaatimada hanoo hagaajiyo soo khaatima wa shayga kaliya culimada rabbaaniyiintu ay ka baqi jireen dadka ilaahay ku xidhan marka ikhlaaska ayaan ku dadaalaynaa inaan amal kastoon qabanayno aan ikhlaas u qaban ikhlaasku cibaadada kaliya ma galo nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadiisa xagga diintana uu ka dhisay xagga dadnimadana uu ka dhisay xagga diinta sidoo nabigu ummadiisa uga dhisay amal kastay qabanayaan inay ilaahay dartii u qabtaan oo ilaahay radihiisa ay ku doonaan ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu hadith al-qudsi wa ka ilaahay laha anigu amal layla shariig illa ii shariig yeelo cid kale layla wadaajiyo oo cid kale shariig aniga laygala dhiga baa ilaahay yiri غني baan ka ahay oo ka kaaftoomahay baa ilaahay yiri ninka amal soo qabtay ee amalka adduunka intuu jooga cid kale ila wadaajiyay isagiyo shirkigiisa waan isku dhaafaa baa ilaahay yiri marka ikhlaas wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din wama umiru lama amrin dadka ila waxa la amray in cibaadada ilaahay jalla wa ala ay u baraxtiraan xagaas waa xaqi diintii xagga dadnimada nabigu ummadiisa uu ka dhiso waxa uu dadnimada nabigu ummadda uu ku dhisay waxa weeyaan walaalka hadaad wanaag aad u sameynaysid badiil inuu wanaaga aad u sameysay wanaag lamida inuu ku sameeyo ha soo dhigan meesha ee waxaad soo dhigataa buu nabigu yiri ninka wanaag inii sameeyay buu nabigu yiri waxaad ugu abaal celisaan oo abaalkiisa aad ku gudaan buu nabigu yiri inaad u ducaysaan oo tiraadaan jazaakallahu khayr بديل هسوقن وحبانو قبتي وإنه wax lamida ii qabtaa diinta islaamku ma qabta taas waxana siiyay abaal baan ku leeyahay abaalkayga waa inuu soo celiyaa may diinta islaamku waxay qabtaa marka hore walaalka ihsaan aad u sameynaysidba waa inaad ugu sameeysaa alla dartii ilaahay dartii waxa ugu sameey haddaad janaazadiisa raacaysa ilaahay dartii u raac haddaad dayn aad amaahinaysa ilaahay dartii u amaahi haddaad wax siinaysa ilaahay dartii u sii haddaad xogaaga ku taageeraysa ilaahay dartii ugu taageer haddaad cilmi baraysa ilaahay dartii u bar haddaad caawinaysa ilaahay dartii u caawi haddaad garab u noqonaysa ilaahay dartii garab ugu noqo haddaad talo ummadad qabanaysa wuxuu nabigu saxaabadiisa ka dhaadhiciyay ilaahay dartii in dadka ugu shaqeeyaan dawlad
دولة نبوية اللي يرابو نبي مدينة المنورة وكدس الدولة النبوية ساس وقد جاي إخلاص هل كي الدنيا ذا أي كجرتا ما أنت أي كجرتا أما أي دعكرتا الدولة من مدحيجي إلى مجهي كي قشنك طريقة كقاعدة يقولي هي أنا إلهي درتي بانو مضى وشقين وعندنا مشقايد كضوني مايو ما جرت الدولة عين كاسة بار كاسة الليل هو رومر بالجارو قال هذا هرومرتي حقيقة هروم كمرين حلبا مع الموض هذا الشغاله هو بشارك الدولة أي كجران شغاله هو بكرنا مساسة والرجيان طبعا مع الموض هذا بشارك وكذب دعوه والرجيان وضنا دوده نبي محمد عليه الصلاة والسلام دولة إسلامية وحود سي من كمدحة إلى كم جهة يقشنك طريقة كقادايا كدرت طريقة كبحد كجوينايا كما ركتاني كما ركتاني دوينايا أو يلاد إلهي درتي بوحكو قبت إسكسر إلهي بن أجر كدونا ياي دولة نبوية كنتم يسني الدولة داسسة كل سنة إلى خلافة معاوية لقى جاربان ليدي دولة نبوية إلى معاوية لقى جارو أما نكيل أورنجر مروان الحمار وعنو يوجد معاوية بن أبي سفيان لقى جارو هل كانت الدولة النبوية كجو ستين هذا علماء دولة ملوكية مركا كبلا مثل معاوية لقى بلابو إلى نكيل أورنجر مروان الحمار لأنه وحكون حكت الدولة الجبروتية وأيضنا بلامي دولة خلافة دولة الأموية خلافة دولة عباسية بلامي دولة النبوية نبي وحو قدس من أمير كمؤمنين وضنك أبو سرية إنه آمن سيهي